السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامنتهن داودياشا ku xidhan channelka dadweynaha ee YouTube kusoo dhawaada mid kamid ah barnaamijyada aad uga barateen channelkan يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت kamid noqo channelka dadweynaha subscribe saar oo nagu soo biir waxaad inoo tahay tartariya dhiirigelin dhimashada qof qadarin qiimo iyo maamuus agtaada kale marka aad maqasho waxa ay kugu noqonaysaa argagax iyo uur ku taalo lama ilaawaan ah marka aad aragto shakhsi aad sanado badan farxad ku soo wada nooleydeen oo dunida ka sii safraya kaasi oona abid dib kuugu soo laaban doonin dibna ula kulmi doonin inta aad dunida ku nooshahay marka aad aragto meydkiisa oo naxashka la sii saarayo waxa aan shaki ku jirin in ay ka iman doonto ilin kulul waxaana la inooga baahan yahay markaas oo kale in aan la imaano samir is-adkeyn iyo in aanu kuwaana qaadano waayo waxa ay xaqiiqadu tahay in uu qof waliba inaga mid ah halkaasi mari doono laakiin inkastoon isweydiino maxay tahay sababta ay noloshu qaabkaasi inagula tacaamulayso haddana waa mid lama huraan ah ubadka dunidan aynu ku noolahay badankoodu waxa ay leeyihiin aabbayaal bara oo ku barbaariya habka ugu habboon ay markaasi isleeyihiin horumar ayay ku gaari doonaan mustaqbalkooda waxaynu ognahay xanuunka ay mariso hooyadu marka ay foolanayso hase ahaatee marka aad aragto ilmahaagii oo markii ugu horreysay soconaya taasi waxa ay kaa dhigaysaa mid ku farxad gelisa oo aad ku faanto waxaase adag in aynu aragno ilmaheennii oo marka aan soo korino inaga tegaya oo nolol cusub dib u samaysanaya balse waxa lagama maarmaan ah in aynu ogaano in ay masiirka nolosha dabiiciga u ah ay sidaas tahay haddaba maanta waxa aynu barnaamijkeenna ku soo qadan doonaa qiso dhacday waxa uu soo noolaaday wiilkan yare agoonka ahi wakhtiyo aad u xanuun badnaa hase ahaatee wax waliba caadi ayay u noqdeen markii ay da'diisu hore u durugtay dhimashada waalidiinteennu waa mid waaqica oo dhici doonta wakhtiyo aanan ogeyn waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa oon ka rajaynaynaa inuu dhimashadooda dib u dhigo wakhtiyo macquul ah riyadaasi in aynu ka dhabayno ma awoodno allah subxaana wa tacaala mooyaane mararka qaar ubadku da'yaraan ayaa waxa ay ku noqdaan agoommo waxaa dhici karta waalidiintiisa mid ka mid ah in ay dhintaan laakiin hase ahaatee mararka qaar waxaaba dhici karta in ay labada waalid ka dhintaan dhibaatooyin dhaca awgood sida inay ku dhintaan shil gaadhi iyo wixii la mid ah sidaasina ay kaga wada dhintaan cayaadan billaah xaalad taasoo kale markay ubadka da'yaraan ku soo haleesho waxa ay leedahay xanuun aan la qiyaasi karin hase ahaatee nolosha ayaa caynkaas ah hase ahaatee marka ay dhacdooyinka noocaasi ubadka la soo darsaan inta badan waxa qaado oo koriya dad u dhow oo ehelkooda ah sida adeeradood amba awowyaashood oo kale balse dunidan waxaa ku nool kuwa sidaasi ku soo baxa marka ay waalidiintoodu ka dhintaan ayaga oon helin haba yaraatee wax qaraabo ah oo u dhow haddaba wakhtigaas oo kale muxuu xalka ugu dhow noqonayaa markaas oo kale xalku waxa uu noqonayaa in loo dhaqaaqo xaggaas iyo goobaha lagu xanaaneeyo agoommada iyaga oo isla markaana rajaynaya in ay mar uun helaan ehel korsada goobahani waa goobo murugo badan marka loo eego dareenka ubadka yaryar ee keligooda ah wiilka aan maanta qisadeenna ku soo qaadan doono waa wiil yar oo Amerikaan ah oo lagu magacaabo Sid Hager haddaba wiilkan yar waxa soo martay qiso xanuun badan oo dhab ah hase ahaatee sanado kadib noloshiisii waxaa ku yimid isbeddel weyn ma ay noqon noloshiisii ciyaalnimadu mid ay farxadi ku dheehan tahay waayo waxa ka maqnaa aabbo oo wuxuu ku barbaaray aabala'aan hooyadii oo haysatay isaga iyo gabadh kale waxa uu kala kulmay dhibaato fara badan hooyadii waxa ay si aad u isticmaali jirtay daroogooyinka sida sigaarka khamriga iyo wixii la mid ah ee daroogooyin ah guriga ayay ku dhaxayn jirtay oo iskuul xataa ma ay tegi jirin isaga iyo walaashii waxa ayna sheegeen in ay wakhti walba jirdid guriga ugu dhex geysan jirtay maalin maalmaha ka mid ah ayuu xaalku isbedelay kadib markii ay qaatay labada caruur oo geysay goob lagu xanaaneeyo agoommada taasi oo markii albaabka saa u gelisay intay dhigtay ka dhuumatay oo ka baxsatay mas'uuliyiintii goobta ayaa waxa ay sheegeen in aysan arag xataa wejigeeda ma aysan noqonin goobtani goob ay ku farxaan labada caruurba waxa uu arkay in ay caruurta kale ee goobtan ku nool ay caadi isaga nool yihiin ay subaxii soo kacaan balse ay cidhiidhiga iyo murugada ay labadooda oo keliya dareemayaan wadciga goobtana wuxuu u noqday dhowrkii bilood ee u horreeyey mid ay aad uga murugoodaan maadaama ayna ahayn gurigoodii marka ay muddo joogeen goobtaasi ayuu haddana isbeddel kala yimid waxaa yimid goobtii ehel raba ilmo yar ay korsadaan waxaana lagu daray gabadhii yarayd ee walaashii gabadhii yarayd markii ay gurigii tageen waxa ay aragtay in ay laba caruur oo kale ay leeyihiin arrinkaasi oo ah arrinay mar uun rajaynaysay in ay hesho sidaas awgeed gabadhii arrinkeedu basiid ayuu noqday warwarkii iyo murugadiina waa ka kala degay waxa uu wiilkii goobta ku noqday keligii cidina isaga ma aysan kaxaysan
goobtii ayuu isaga tegay markii ay da'diisu gaadhay 18 taasi uu qaanuunka goobta dhigayo in ay carruurtu marka ay da'daasi gaadhaan goobta isaga tagaan inkastoo goobta kala kulmay dhibaatooyin iyo saaxiibo wanaagsanba markii uu goobta ka tagay haddana waxa uu la kulmay uu la waajahay dhibaatooyin kale maadaama uusan haysan lacag uu ku noolaado heer waxa uu gaadhay in uu qashinka ka dhex baadhbaadho wax alla wax uu ka helo waxa uu ahaa mid aad uga warwaraa meesha ay ku dambayn doonto noloshiisa mustaqbalka meel kursi ah oo dadka wadooyinka maraya ay ku nastaan ayaa waxa uu la fadhiistay oohin iyo murugo mana uusan ogeyn in ay noloshiisu maalmo yar ka bacdi ay isbedeli doonto meeshii ayuuna iska dul seexday saacada kadib ayuu hurdadii ka soo kacay waxa uuna ku dhaqaaqay inuu wax u raaraadsado shaqooyin ayuu raaraadsaday wuuna waayay waxa uuna ogaaday inuu xalka kaliya yahay inuu gawaadhida muraayadaha ka masaxo sidaasi ayuu ku waday waxa uuna ka helay cuntooyinkii maalinlaha ah waxa aragtay mid ka mid ah mas'uuliyiintii goobtii uu ka soo tagay agoomada isagoo u masaxaya wejiga hore ee muraayada gaadhigeeda islaantii ayaa waxa ay bilowday in ay wiilkan xal u raaraadiso xalkaasi oo ah in ay aabihii u soo hesho balse macquul ma tahay in loo soo helo aabihii macquul way noqotay kadib markay baafin iyo dadaal badan sameeyeen 3 usbuuc kadib waxa ay soo heleen aabihiisii aabihii markii loo sheegay uu helay runtii aad ayuu ugu farxay kadib markuu helay wiilkiisii 15 sano ka bacdi wuxuuna ka codsaday aabihii inuu wiilku gurigiisa u raaco uu halkaasi ku wareego laakiin farxaddu waqti dheer uma aysan sii socon marka loo eego wiilka 3 wiig oo kaliya markii uu la joogay uu farxadda la wadaagay wiilkii yara aabihii waa geeriyooday wuxuuna u geeriyooday cudurka kansarka oo sii hayay wiilkii yara ayaa qarracan iyo ooyin kala joojin waayay hase ahaatee wadcigii waa isbedelay kadib markii uu ogaaday in uu dhaxal ahaan u helay lacag aan tiradeeda la qiyaasi karin taasi uu ka geeriyooday aabihii wiilkii waxa uu dareemay farxad aad u ballaadhan wuxuuna go'aan ku qaatay inuu lacagtaasi kala badh ku bixiyo goobtii agoomada lagu hayay ee uu ku noolaa si loogu sameeyo dib u habayn ballaadhan baaqigii kalena isaga iyo walaashii ayaa qaatay qisadani runtii waa qiso cajiib ah sideed u aragtaan qisadan كومنتي أهان فكر كينا نوغو دافع حق هوسي أنا هلمامين اللايك سيدو كالها هلمامين إنا الجانل سبسكرايب سارتان سيادو حرناتان أو طلس عطان برنامج جدا عن مستقبل كسوغلين دونو الجانل كينن جانل كددوينها وانا تكون مهاتنتهن داوشدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته